عشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. caawa ay tahay habeen jumco ah marka koowaad aan ku wada sallino xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. marka xigta kuma uu ahaa rasuulka alayhi salaatu wassalaam. videogan wuxuu soo koobi doonaa taariikh nololeedkii rasuulkeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaa lagu magacaabi jiray محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. نبي محمد نحريس إنه بدقلي كركيسا عاتي وحاوليس لو مغعابي جري آمنة بنت وهب. النبي قال أورن جري أما لونا ناس جري لولوغي لآمني صادق الأمين. شدو قال نبي نحريس إنه بدقلي كركيسا عاتي وحوسا حجي هالمرد عفر جارنا وصاع مرستي. wuxuu nabiga calayhi salaatu wassalaam saaxiib la ahaa abubakar as-siddiiq oo dhib iyo dheef ay isla soo mareen. tirada xaasaska iyo caruurta suubana Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee caruurta rasuulka sallallahu alayhi wasallam tiradooda waa 7 wiil iyo 4 gabdhood. xaasaska rasuulkana waa 11 siday culimada intooda badan isku raaceen. goortii uu dhashay xabiibkeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku dhashay magaalada Makka sanadkii maroodiga ama bishii Rabiicul Awwal. waa kuma rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa qof midka ugu wanaagsan oo Alla abuuray. wuxuu ahaa qof aan isla weyneyn oo bulshada u wada siman yihiin. wuxuu kaloo ahaa qof cadaalad si wanaagsan u kala garqaada. nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu ahaa qof garta qaata. wuxuu ahaa qof si wanaagsan dadka u dhageysta. wuxuu kaloo ahaa ruux adduunyada aan jecleen. rasuulka sallallahu alayhi wasallam waa qofka inoo balan qaaday in aynu jannada ku kulmi doono waa intii nasiib u yeelata. sidoo kale rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waa xabiibka Alle. hadallada rasuulka sallallahu alayhi wasallam nabigeena wuxuu ka dardaarmay in dumarka iyo caruurta aad loogu naxariisto. qudus ay muslimiinta furtaan ayuu ka dardaarmay oo hadda ay yuhuudda haystaan in aan wax dhib loo geysan. dhulka barakeysan ee Sacuudiga ka dardaarmay nabigeena sallallahu alayhi wasallam maadaama ay tahay halka uu ka soo jeedo. nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uuna ku dhashay uuna ku geeriyooday oona hadda ku duugan yahay. salaada ayuu in badan ummad ugula dardaarmay iyo in dhiigga qofka bini'aadamka aan lagu daadinin si aan sharci ahayn. nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu kaloo yidhi hal aayad xitaa ha noqotee ummadayda iga gaarsiiya. geerida nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu geeriyooday maalin isniin ah 12kii Rabiicul Awwal sanadkii 11aad ee hijriga. wuxuu xilligaas jiray nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee 63 sano. nabiga sallallahu alayhi wasallam geeridiisa ilaahay baa ogeysiiyey. wuxuu ahaa nabiga kaliya ee laga amar qaatay in naftiisa laga qaado. nabiga wuxuu xanuunsanayay 18 maalmood oo ay asxaabta booqanayeen. quraanka ayaa la taam yeelay oo waxaa soo digay aayadihii ugu dambeeyay. sidoo kale wuxuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam saxaabada ku yiri ma idin gaarsiiyay diinta oo waliba 3 jeer ayuu ku celceliyay. markaasay asxaabada dhaheen haa rasuulka Allah waana gaarsiisay. rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu yiri Allah ka marqaati ka. kaas ayuu noogu dhamaaday taariikh nololeedkii koobnaa ee ku saabsanaa xabiibkeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. sheer garee oo la wadaag asxaabtaada waxa la faafiyo taariikhda rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayaa ugu khayr badan. assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.